abaaraha heer qaran iyo xukuumadda gobolka iyo madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo ayaa deeq raashin soo gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ku nool deegaanada hoostiga degmada Garadeg. Deeqda raashinka ahayd oo ku soo beegmaysa xilli ay xaalada abaareed ka sii darayso isla markaana deegaanaduna ay aad u jilicsan yihiin. Deeqda raashinka ahayd ayaa maalintii shalay waxa kala diray gudida abaaraha ee heer degmada Garadeg iyagoo gaarsiiyay guud ahaanba deegaanada hoostiga degmada Garadeg iyo dadkii loogu talagalay deeqda isla markaana ka koobnay daqiiq, sonkor iyo bariis iyo saliid. Ayaa wareynta waxa ka warbixiyay gudoomiyaha gudida abaaraha ee heer degmo ahna maayirka degmada Garadeg Mudane Faarax Aadan Ciise wuxuuna yidhi sida tan sidaad aragtaan halkan waxaanu ku qaybinaynaa ama ku kala diraynaa raashinkii soo gaaray deegaanka degmada Garadeg kaasoo ay soo direen guddiga abaaraha heer qaran raashinkaasoo dhammaa 1400 oo qoys waxaa horaantiisa timi 29 bisha saddexaad waanu ka bilownay dhinaca Gawsa Weyne iyo dhinaca galbeedka ee Balanbaal iyo Alcade halkaas bilahaas waa la soo qaybiyay maalmahaas ayaa lagu soo qaybiyay maanta qaybihii u dambeeyay deegaanka Garadeg iyo Fadhigaab iyo Farguul iyo Ilaasin Caro ayaanu qaybinaynaa raashinkaasi wuxuu gaarayaa guud ahaan soo gadhay 1400 oo qoys runtii waxa weeye dadku aad bay ugu liibaanayaan sidoo kale sidoo halka ka hadlay xogayaha gudida abaaraha ee heer degmo Aadan Cabdi Hoori oo ka bixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadan isla markaana uga mahadceliyay gudida abaaraha iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen waxaana dhaheen sida tan waxaanu kala diraynaa raashinkii naga soo gaaray guddiga abaaraha ee qaranka kaasoo ku deegaanka Garadeg oo dhammaan aanu kala dirayno raashinkaasoo gaarayay 1400 oo qoys ayaan la gaarsiinayaa dhammaan tuulooyinka ay xukunto degmada Garadeg deegaankeeda deeqda raashinka ay xukuumadda gobolka iyo madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo iyo gudida abaaruhu soo gaarsiiyeen deegaanadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay xaalada abaareed ka sii darayso isla markaana dadka deegaanadan ay aad u jilicsan yihiin ay ahaydna mid ay u baahnaayeen umada sayre warbaahinta qaranka Garadeg.